Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Gonzalo Higuain ayaa xaqiijiyay inuu kasoo tagay kooxda Juventus isagoo ku wajahan AC Milano. Milan ayaa isbedel weyn ku sameysay shaxdeeda waxayna soo qaadanaysaa qaar ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah. Maadaama kooxda kubadda cagta Juventus ay soo qaadatay Cristiano Ronaldo, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa wadahadal la furatay Higuain inay soo qaadato. Xalay ayuu Higuain usoo duulay Milan si uu maanta tijaabada caafimaadka ee kooxdaasi u dhammaystiro. 79 milyan ayay kooxda kubadda cagta Juventus xiddigan kusoo qaadatay sanadii 2016 taasoo u dhiganta 90 milyan oo lacagta Yuroga ah. 36 gool ayuu dhaliyay Serie A xil ciyaareedkii la soo dhaafay, waana mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee AC Milano hadda ay soo qaadatay. Waa 30 sano jir, kooxda kubadda cagta Juventus kula guuleystay Serie A iyo Coppa Italia. Guud ahaan 55 gool ayuu u dhaliyay 105 kulan oo tartamada dhan u saftay, 40 gool oo ay ku jirto kulamadii Napoli iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Milan marka la isku daro. Higuain ayaa hadda rajeynaya in bandhigiisa kooxda kubadda cagta Milan sii bilowdo sababtoo ah kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay isku heshay ciyaaryahano uu hogaaminayo Cristiano Ronaldo, waana u fursad xiddiga reer Argentine inuu joogo kooxda kubadda cagta AC Milan inkastoo qorshaha heshiiskan uu yahay amaah. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.